waxaa laga dhawaajiyay bariisku wuxuu u baahan yahay biyo runtii webiga Shabeelle sanadahan dambe sida uu yahay muxuu ahaay aada taqana ayaa looga sii dayrinaya hadda jadwalka aqoon-yahanadu ay soo gudbiyeen bariis wax soo saara dayrta kama horeeyo sababta hadda guga tijaabadii kale hadday ku celiyaan waa dayrta wixii bariis wax soo saar oo rasmiya la beero waa xilliga dayrta waqtiga bariis ugu fiicnaa jiray haddaad xasuusataan inkastoo shimbirtiisa iyo dhibaatooyinkiisuna ay badnaayeen haddii marka dayrtii iyadoo bariiskii taagan yahay webigii go'o oo muxuu ahaa xiintooyda iyo kili barwaaqo keliya ay sheekada ku soo aruurto wax soo saarka aan raadinayno oo ilaa 6,000 hektar uu gaaray bariiska lama gaari karo arrintaas ayadaa waxay u baahan tahay inay dawladda dhexe soo farageliso waxaan ugu baaqaynaa dawladda dhexe inay wada hadallo rasmiya oo wax ku oola oo muhiimadda koowaad leh ay la gasho dawladda aan dariska nahay Itoobiya oo ay kala gasho maareynta webiga Shabeelle iyo sida sharciga caalamiga ah uu qabo in dawladda Soomaaliya iyo beeraleyda Soomaaliyeed ay ka helaan qaybta ay xaq u leeyihiin biyaha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed aaday runtii arrintaas u khusaysaa bariisamaadkii waxaad xasuusataan bariiska waxaa laga beeri jiray Hawaii intay ku taal mataqaanin waa sablaale ka sii gadaal meesha bariis laga taxi jiray haddana waxaan cabsi ka qabnaa bariiska laga beero jowhar deerta inuusan biyo ku filan inuusan helin arrintaas ayadaahu horumarka ayay khusaysaa amnigay khusaysaa noloshay khusaysaa haddaan nahay Hirshabeelle nolosha shacabka wax uga muhiimsan maareynta webiga Shabeelle ma jirto waxaan rajaynaynaa dawladdeenu ayadaa wakiil nooga ah arrimaha dibadda arrintaas si dadnimo leh inay gorgortan iyo wada hadal ay uga bilowdo sharciga caalamku wuxuu qabanay noo soo dhiciyaan annaguna wixii farsamo oo aan ku kaabi karno waa ku kaabaynaa waxaan mar labaad u mahad celinayaa shirkadaha danwadaag oo runtii hawshan bilaabay waxay muujiyeen isxilqaanka ay isxilqaameen in wadankooda la xajaclo oga jirto xoolahooda ay ku aamineen rajo ay ka leeyihiin annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanaan waxba ka daba dhigan wax alla wixii aan la garab istaagi karnan aan la garab istaagno wassalaamu calaykum